بسم الله الرحمن الرحيم هل كان waxaa marti noogu ah Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Sanweyne oo ah xildhibaan dowladii hore ee Soomaaliya siyaasi weyn oo rugcadaa isla markaana ku nool qurbaha dalka Canada wuxuu ahaa aasaasiyaashii xisbiga USP ee midnimada Soomaaliyeed isla markaana xil sare ka soo hayay maanta waxaan doonaynaa maadaama uu dhowr jeer safar ku tagay magaalada Kismaayo xilligu ah xildhibaanka dadka iyo dalkana aad u kala yaqaano bal sida ay ula muuqato qaabkii wax loo qaybsaday xildhibaanadii maamulka kumeelgaarka ee Jubbaland oo dad badan ay leeyihiin takrifal ayuu ku sameeyay Axmed Madoowe bal arimaha waxa aad ka qabtid iyo sida kula muuqato bal dadweynaha u gud bismillahir rahmaanir rahiim runtii aad baan idinku mahadnaqayaa inaad iga wareysataan arrimaha la xiriira Jubbaland ama Kismaayo Jubbaland iyo dhismaheeda iyo sida wax looga soo qabtay hadeer ama intii hadeer sanadahan dhowrkay ugu dambeeyay international community-ga iyo dawladaha dariska oo Kenya ugu xoog badan tahay ay dadaalka ugu jireen runtii dadkii taageersanaa baan nahay dadaalka waa la wada rabay maamul baa la sameeyay madaxweyne la sameeyay la yiri bal ummadu ninkaas ha noqdo kii dadka isu soo dhaweyn lahaa ee isku wadi lahaa ee si cadaalad ah ugu qaybin lahaa runtii lamu iman kaalintiisii kama soo bixin lamu iman tii dadku ay rabeen ummadii reer Jubbaland cadaalad ugu qaybin marka laga sii tago reer walba qoys ahaan cadaalad darro iyo sharaf xumo iyo si lagu kala tago ayuu ka dhigay mas'uuliyadda isaga kaalinteeda koowaad leh reer walbana cidii uu kala tashaday ee tiri annaga ra'yiga iyagu waa sida ayaa mas'uuliyadda leh markaan inta hore uga gudbo Axmed Madoobe wuxuu dhisay maamul goboleedka xukuumadda marka hoos loo noqdo ee daaroodka laga tago ee hartiga deegaanka ku ah Jubbaland ama Kismaayo loo gudbo qaybtii uu sameeyay ma ahayn qayb cadaalad ku dhisan waxay ahayd qayb uu reer faraha u galiyay reeraha harti kamida wuxuu sameeyay saddex wasiir iyo mayor wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirkii madaxtooyada iyo mayorkii magaalada Kismaayo saddexdaba ma jirteen buusi waysaga iyo tala ka dhaxaysa Cabdiweli iyo isaga ayaa talada gaaray Cabdiweli baa ku dhiiri galiyay isaga yiri sida wax noogu qaybi tiibuna qaatay gudubta iyo eedda iyo dambigana isaga number 1 ka isaga ta koowaad qaadaya talabaadna cid loo raacayo de waa la yaqaan runtii arintaasi arin shaqeynaysa maaha dadka kale oo dhan lagu sameeyay wax ummadda Soomaaliyeed ka dhex shaqeynaya maaha wax annaga naga dhex shaqeynaya maaha waxaanu aqbali karna maaha waxaan yeeli karna maaha waxa ku xigay oo uu sameeyay baarlamaan ayaa la yiri waa la dhisayaa hartiga markaan hoos ku soo noqdo 7 xubnood bay qayb u heleen iyadoo dadkii harti oo dhani ay taagan yihiin oo la leeyahay aanu qaybsano oo taladayada odayaasha wax qaybiyaan oo ha u fariistaan ayuu taladiisa iyo taladii isaga Cabdiweli ka dhaxaysay uu ku qaybiyay dabadeedna uu reer gacanta u galiyay iyaga soo qaybiyay ma jirteen buu gacanta u galiyay iyaga soo qaybiyay 5 xubnood ayay qaateen 2 xubnood waxay dhahan Warsangeliya dhulbahantaale miyaan looga badan yahay magaalada Warsangeliya dhulbahanta miyaysan degneen magaalada Kismaayo iyo tuulooyinka kamid ah meeshan runtii ma baa hartiga arlada jooga Warsangeliya iyo dhulbahanto oo kaliya dad badan oo kale hartiga baa jooga dad badan oo kale daarooda baa jooga oo aan marreexaan iyo ugaadeenahay waa tabla leh oo leelka sare oo gari leh oo inta ay dalka deegaan ku yihiin inta aan looga halgan badnayn markaas inta aan hore uga gudbo taariikhda Kismaayo 200 sanadood in ku dhow ayaa hadda dadka jooga ay wada joogeen intii ku horeysay taariikh badan bay leedahay nin waliba meeshuu doono iyo si uu helayo hadduu rabo inuu raadsado uu raadin karaa intii la wada joogay cid waliba deegaanka waxay ku lahayd iyo taariikhda ay ku lahayd iyo halgan waxay ku lahayd waa wax la yaqaano wax muran ku jira maaha
wax cidina ay cid ku riixi karta annaga idinka badan maaha wax nimanka hadeer wax qaatay isaga iyo Axmed Madoobe iyagu ay afka isu saareen ay dadka uga taariikh ama halgan iyo bahalkii badan yihiin maaha waliba dhulbahantay uga badan yihiin taariikhdii hore degaankuna saasay ahayd dhaqan ahaan iyo sidii lagu wada joogay sida hadeer lagu joogana looguma kala tiro badna degaan ahaan iyo dad ahaanba halganku markii ummadda Soomaaliyeed burburtay ee qarankii Soomaaliyeed burburay ee xamar laga soo qaxay ee rag damceen inkastoo aanan maanta wixii dalka ka dhacay aanan cidna ku eedaynayn oo aanan hadeer beesha hawiye u jeedin oo aan taariikh ka hadlayo markii rag damceen inay Kismaayo qabsadaan oo ay yeeshaan oo dadkaas dib ugu soo noqon oo ay ku soo duuleen oo ay araara yimaadeen maalintii ay taagneed yaa Allah binafsi ee duunyaha lagu kala dhuumanayay ee ahayd hooyay hoosta igeli hadda kuwa aan ka hadlayay dhulbahanta aan leeyahay maanta sidaas laga yeelay cidina ugama halgan badnayn kuwii araare ka gudbay iyaga ahaayeen kuwii hormuudka ka ahaa iyaga ahaayeen kuwii markaa la isku soo gaaray wixii ka dabayimaanayay ay ka dabayimaadeen iyaga ahaayeen kuwii la foolay iyo afgooye hormuudka ka ahaa in dib la isugu la noqdaa iyaga ahaayeen taariikhdeedii dambana saasay ahayd shaqayn mayso 3 sano ee hadeer Kenyaatiga iyo wixii la mid international community ay yimaadeen al-shabaab meesha lagu la dagaalamayay inay history u noqoto Kismaayo oo la yiraahdo cidaasa maanta leh diyaaradaha lagu garaacay kaarayaashu marayaan caalamku leeyahay aanay lahayn dadka dhulka degani waxa shaqaynaya Kismaayo sida yahay sidii dadku u wada lahaa arrintaasina wax aan ka haranana maaha waxaan yeelanana maaha wax sababteeda aan u tirinano labadaan weeye waxaan ugu ergoonana weeye odayaashooda isimadooda siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda waxaan u leenahay haddii aydan wax ka qabanna idinka ayaa la qaba oo kula jira weeyaan ummadda kale Soomaaliyeedna sidaas ay dhibaatada u wada tirsanaysaa in allaaliyantii dhibaatada tirsanaysa intii ka hadashayna waan u hambalyeynaya maxaad ugu baaqaysaa xildhibaanada ka soo jeeda Khaatumo iyo oo gobolka sheegta oo dawladda dhexe baarlamaanka kamid ah sidoo kale reeraha Warsangeli iyo jaaliyada ku nool magaalada Kenya maxaad ugu baaqaysaa runtii maamulka Khaatumo ee xamar jooga iyo baarlamaanka ka soo jeeda beelaha dhulbahante ee xamar jooga labadaba waxaan leeyahay haddii aad hore gaabis uga noqoteen arrinta Kismaayo sool iyo sanaag iyo cayn iyo Kismaayo intaba dhulbahante wax ku leeyahay qofku waa inuu gartaa mas'uuliyaddu waxay faraso mas'uuliyaddu haydin farto in aad ka hadashaan oo haddii aad hore uga gaabiseen aad ficilka dib ula soo noqotaan oo ummadda Soomaaliyeed ee waxaan diidan aad kala mid noqotaan oo mooshinka ummadda Soomaaliyeed ay gudbisay baarlamaanka Soomaaliyeed dadka jubbooyinka ka soo jeeda ka midkii ay gudbiyeen waa inay taageeraan xildhibaanada beesha dhulbahante waa inay support dadka kale uga doonaan waa in baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu diidaa inuu aqoonsado qaabka loo dhisay dhismaha maamulka gobolada jubbooyinka maamul ahaan iyo baarlamaan ahaanba ta aan kula talinayaa waa tajaaliyada Kenya aad ka hadlashay dhulbahante yaadar waxa weey waa niman hawshoodii ka seexday waa niman aan meesha looga tiro badnay waa niman aan looga dhaqaale badnay ina afayba ka shaqaynaya oo Axmed Madoobe baa garaynaya oo ka shaqaynaya inuu sidan sameeyo yaadar hadiina afay wasiir dawladda Kenya ka ah hadeerna infoyga igadu jooga ah Soomaali oo mas'uula de waxay ahayd in iyaba ay dadka meesha ka joogaan iyo siyaasiyiinta ay yiraahdaan nagala shaqeeyo inay ka hawlgalaan haddana waxaan ugu baaqayaa warwaad ka seexateen Nairobi joogi meeshaan haddaydan Kismaayo wixii aad ku lahaydeen iyo cadkiini aydan yeelan dhanka kale waxaan doonayaa inaan wax ka su'aalo magaalada Kalkacyo waxaa la sheegay maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen in uu ka dhacayo shir ay isugu imaanayaan beelaha wada dega
puntland iyo gaar ahaan gobolka sool iyo sanaag ceen qaybo odayaal badan oo ka socda in meesha lagu casumay magaaladii laascaanoodna waa la haystaa reer gurigooda la haystaa sidee kula muuqata in ay ka qayb galaan shir guri nabad ah ay ugu tagaan kaalkacyo oo aan dhibaato ka jirin runtii de anugu waan maqlay shir baa cabdiweli iclaamiyey oo uu leeyahay dadka puntland jooga ha isugu yimaadaan arrinta meesha taallaa waxaa weeye dadka puntland jooga puntland dee waxaan filayaa mar baa la wada dhistay laakiin waa lagu kala tegey sababta loogu kala tegayna wax kale ma ahayne puntland in la kala tago iyadaa samaysay puntland gobolka sool ee maanta la haysto ee somalilan haysato puntland iyadaa bixisay iyadaa faraha ka saartay somalilan maamulkii puntland ee cabdilaahi yuusuf baa ka saaray kii cadda muuse uga dambeeyey oo sidii sii akiidiyey kii faroola uga dambeeyey oo labadaa hore siday ku shaqeeyeen ku shaqeeyey cabdiweli baa ku soo xigay oo intuu kambayn ku galay laascaanood faataxa laguma qabsan haddana sidii kuwii hore maray oo ku shaqaynaya marka waxaa weeye haddeeruu kismaanya sidaa ka yeelay oo mayd maxaa la sii sidaa mayd maxaa ugu dambeeyaa la yidho kaa la sii sido ayuu ugu dambeeyey baa la yidhi hadduu kismaanyo dadka dhexdiisii iyo arrimaha uu ka fuliyey marka dee ninka noocaa samaynaya dad baan isugu yeedhayaa oo aan talaan midaynaya waxaan u malaynayaa wax shaqaynaya maaha cabdiwelina waxaan filayaa inuu yahay wiil raaxo joogta waxa weeyaan waxaan qabaa haddii la rabo in wuxuun la qabto ama laysuba yimaado la wada hadlo laysu yimaado waa in number 1 waa in arrintaa kismaayo ka dhacday ee haddeer loo tirinayo in cabdiweli hormuudka ka ahaa waa inka wada hadalkeedu wax walba ka horeeya talabaad dembiga 8 sano ka soconayay laascaanood ee gacangelinteeda iyo mas-uuliyaddeeda ay puntland lahayd ee puntland ay sii daysay dalkaa oo somalilan tiri qabsada sidii xildhibaan saadiq oo puntland ka midiba uu caddaynayay mas-uuliyaddii dembigaa waa in puntland inay lahayd cabdiweli qiraa garowsadaa sidii markaa loo tashan lahaa waddadii laysugu iman lahaa markaa way iman kartaa dhulbahante nidaam khaatimo waa leeyahay oo waa jira dad kaloo siyaasiyiina buu leeyahay madax iyo isimo aan puntland ku xidhnayn oo maanta aan ku xidhnayn buu leeyahay haddii arrintu ay tahay in dhulbahante ay wax isweydiiyaan dadkaasoo dhan baa la rabaa in laysugu wada yeedho haddiise uu rabo cabdiweli in uu u yeedho dadka puntland u jooga dee adeer wuu u yeedhan karaa dabadeedna kuwii saxaafigu jooga u yeedhan karaa kuwa boosaasu u yeedhan karaa wax allaaliya wuxuu doonuu meesha ku shirsan karaa wixii ka soo baxaana dee isagay jirtaa laakiin wax dhulbahante wax ka khusaynayaan ma aha anugu waxaan leeyahay sharaftu waxay ku jirtaa in wixii la kala galayna la saxo inta aan wax kale laga wada hadlinna dembiyadii laysu qirto dabadeedna si guud oo aan ahayn inta puntland u shaqaysa iyo wixii la tala ah laysugu yimaado lagu wada hadlo markaa haddii wax laysku raacayo iyo haddii nin waliba uu maamulkiisa iyo nidaamkiisa iyo taladiisa uu yeelanayo dadkay u taallaa sharaftu saasay ku jirtaa wixii khaldamay niman yahow ma qaybsana marka dee halkaa intaasaan ka odhan lahaa aad baan u mahadsan tahay xildhibaan cabdirasaaq sanweyne waraysigeena qaybta labaad ayaan isugu soo laaban doonaa hadduu alle idinka dhigo intaa ka horeysana waxaan kala tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo salaamu calaykum